Maalintii aan xilkan qabanayay ayaa go'aansaday in kitaabkan uu inoo noqdo dastuurkeena koowaad. Waxa ku yaalana aan ku dhaqanno. 13 sano markuu jiray ayuu ku dhameeyay Quraanka Kariimka ilaa iyo haddana waa uu yaqaanaa waana xaafidul Qur'aan. Waxa uu ahaa sabool. Wuxuu iibin jiray cabitaanka laga sameeyo xabxabka ama qaraha. Jaamacadda Marmara ayuu culumta dhaqaalaha kaga qalin jabiyay. Kadibna diinta ayuu aad u bartay oo uu college kaga baxay. Hooyadii Tanzila 2011 ayay geeriyootay. Aabihiina Axmed isagana waxa uu geeriyooday 1988. Erdogan 2003 ilaa 2014 wuxuu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga. Ka hor wuxuu ahaa duqa magaalada Istanbul. Erdogan waxaa loo xiray hal gabay uu tiray markuu ahaa duqa magaalada Istanbul. Gabaygana sidan ayuu u dhacay: minaaradaha waa waramaheena, qudbooyinka waa gaashaamankeena, koofiyadaha masaajidkana waa xaryaheena, mu'miniintana waa askarteena. Allahu akbar. Gabaygan dartiis ayaa xilka looga qaaday kadibna 4 bilood ayuu xirnaa. Erdogan wuxuu sidoo kale ahaa ciyaaryahan weyn oo kubadda cagta ciyaari jiray, wuxuuna ku ciyaari jiray lugta bidix. Sano uu xilka ka hayay dalka Turkiga waxa uu noqday dal diinta Islaamka aad uga adag. Xagga dhaqaalahana si aan caadi ahayn ayuu Turkiga u soo kabsaday. Erdogan ka hor masaajidada waa ay ku yaraayeen dalka Turkiga. Erdogan ka hor dumarka xijaab ma qaadan jirin badankood. Erdogan ka hor ma furneen dugsiyo diinta lagu barto. Macaawinada Turkiga ee ku bixisa Soomaaliya ayaa ah lambarka koowaad. Waxaa xasuus Soomaalida u leh gargaarkii Erdogan uu Soomaaliya u fidiyay abaartii 2011. Erdogan waa qofkii ugu horeeyay ee caalamka tusay in Soomaaliya ay tahay dal la imaan karo, isagoo hay'ado badan oo magaca Soomaaliya lacag ku qaadan jiray ugu yeeray in ay Muqdisho ka howlgalaan. Rajab Tayyip Erdogan ayaa wuxuu awood u yeeshay in Yuhuudda uu ku tilmaamo maamul goboleed argagixiso ah. Wuxuu Qudus u aqoonsaday in ay tahay caasimadda Falastiin, isagoo yiri weligaan gorgortanka geli mayno Qudus.